xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta si weyn uga falceliyay isku shaandhayntii uu maalinimadii shalay ahayd madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku sameeyay golihiisa wasiirada. Wareegtada madaxweynuhu soo saaray ayaa waxay isugu jirtay xilka qaadis, magacaabis iyo waliba isku bedel xilal. Maxamed Faarax, xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa wuxuu wareegtada madaxweynaha ku tilmaamay inay ahayd mid wiiqaysa qarannimada Somaliland. Waxaanu sidoo kale xogayuhu sheegay in Somaliland ay ku soo ururtay hal qoys, waa sidoo hadalka u dhigay. waxaan la wada socnay in muddo Somaliland ka taagneyd cabasho badan oo xagga saami qaybsiga ah. saami qaybsigaas oo laba kala kacayo mid ahaa qodob dastuur ku xidhan oo doorasho ku xidhnaa inta dastuurka la bedelo iyadoo doorasho ahayd taa baarlamaanka sideedii baa lagu galay. midna wuxuu ahaa mid qalinka madaxweynaha ku xidhan. waxay ummaddu u dhig taagaysay dadka saamiga ka cabanay waxay u dhig taagayeen mar haddii ka tanaasuleen tii dastuuriga ahayd oo ay u dhigtaan waqtiga kale inay ta madaxweynaha ka helaan saamigoodii. isku shaandhayntii shalay dhacday waxay ku tusaysaa cadaaladda xukuumadda kulmiye madaxweynaheeda. markaan eegno bilariska dawladda ugu waaweyn sida ay u qaybsan yihiin, Somaliland horta waa beelo qaran wada samaystay, ku heshiiyeen qaran Somaliland wada dhistaan oo qurux badan oo ay wada leeyihiin oo ummadda ka dhaxeeya. haddaad aragtay sida loo qaybiyey tusaale ahaan wasaaraddii arrimaha dibadda, wasaaraddii arrimaha gudaha, wasaaraddii maaliyadda, wasaaraddii waxbarashada, wasaaraddii caafimaadka, wasaaraddii biyaha, wasaaraddii xanaanada xoolaha, taliyihii ciidanka booliska, taliyihii ciidanka qaranka, taliyihii ciidanka sirdoonka qaranka, taliyihii migration-ka, intuba isku weeyaan maanta. quruxdii Somaliland iyo wax wada lahaashii Somaliland iyo wada jirkii Somaliland nooc ma u eegaanaysaa maanta xukuumadda kulmiyeen arkana sida u dhisantay. markaan aragno foolxumo intee leeg baa ku gadaaman, intee si adduunka maanta wax ka keeni karta wax lagu iibin karaa, qaabkee wax loo iibin karaa maanta. Somaliland waxay ku gadmaysaa cadaalad inay hesho, in loo sinaado xukunka, in loo sinaado resource-ka gobol ahaan, degmo ahaan, in intaba loo sinaado. maanta waxaan aragnaa inaanay taasi jirin. bulshada Somaliland waxaan ugu baaqaynaa inaad aragtaan maanta cadaaladdii madaxweynihiina. ummadda Somaliland cadaaladdii madaxweyne Muuse Biixi maanta waad aragtaan noocay u taalo. beelaha ay cabashadu inta badan ka soo yeedhaysa waa bariga sool, sanaag iyo sool iyo gobolada Awdal iyo Sanaag. iska daayir wuxuu tira shalay uu quuskooyay inaanay istaahilin wasaaradaha qaranka ee halbowlahana shalay waa cadaatay. tusaale ahaan bariga sanaag iyo sool waxa la siiyey oo ay haystaan 3 wasaarad ama 4 wasaarad siiya. Awdal waxay haysataa 3 wasaaradood oo siiya. bal iska daayir wuxuu soo kordhiyay inuu iyaga yiraahdo wasaaradiinii baan labaydu ku qaybinayaayo maalgashina waasay wasaaradiinii ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska intuu qayb u soo qaadiga toodii u qaybiyaba. Awdal cadaaladii Muuse Biixi wata, Awdal cadaaladii kulmiye wata. maanta waa maanta berino doorasho imanaysa. wala idin hor iman doonaa inaad waajibkiina ka gudataan bay taal, inaad tiraahdaan madaxweyne waan ku soo aragnaa cadaaladaadii, kulmiye waan ku aragnaa cadaaladaadii. kulmiye wuxuu wadada cagta saaray wadadii guuldarrada. falcelinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa imanaysa kadib markii maalinimadii shalay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu wax ka bedel ku sameeyay qaybo ka mid ah golihiisa wasiirada, taasi oo maalmihii u dambeysay bulshadu si weyn ugu dhagtaagaysay. Mustafa Maxamed Cabdi, telefishinka Sahal Cable.